madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo booqasho ku jooga magaalada Baydhabo isagoo uu heliyo madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxa ay maanta booqasho ku tageen deegaanka Mayafuulka Baydhabo halkaasi oo madaxweynayaashu ay waqti ku qaateen beerta Cali Marguus oo kadibna ay ku dhaxlugayeen qaybaha kala duwan ee beerta arkeen dalagga iyo wax soo saarka halkaasi ka socda ee muhiimka ah intaasi kadib waxa ay labada madaxweyne ay kormeereen dhismaha xaruntii hore ee madaxtooyadii Soomaaliya ee magaalada Baydhabo halkaasi oo ay indha-indheeyeen kadibna waxa ay u gudbeen biyo dhaca Garbooda ee caanka ee magaalada Baydhabo ku yaala halkaas oo ah goob qurux badan oo biyo dhaca oo dadku u dalxiis tagaan waqti ayay halkaasina ku soo qaateen madaxdu kulanka iyo kormeerada ee madaxdu ay sameynayeen waxa kala qayb galayay gudoomiyaha baarlamaanka ee Koonfur Galbeed iyo waliba mas'uuliyiin kale waxana ay ahayd booqasho ku dhisan isdhexgal iyo in la arko goobaha dalxiiska ku quruxda badan iyo meelaha wax soo saarka ku fiican iyo waliba xarumaha dawliga ah ee ka jira magaalada Baydhabo waxana ay qayb ka ahayd booqashooyinka uu madaxweynuhu sameynayay intii uu ku sugnaa magaalada Baydhabo